كاخذا بالنوى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، كسو دوادا موقال كلا إيا قصة كلو معان بدن. waxaa jiri jiray nin la yiraahdo Abu Mihjan, Sa'd ibn Abi Waqqas, xilligii oo dagaalka uu hogaaminayay Qadisiyya. Sa'd wuu dhaawacnaa, dagaalkana qof ayuu madax uga dhigay oo dagaalka hogaaminayo. Haddaba Abu Mihjan kan wuxuu ahaa nin taabici ah, wuxuu laakiin kuma shaqaysnaa khamri cabis, khamrigu aad u cabi jiray. Sa'dna wuxuu sameyn jiray ninkan mar walba khamriga uu soo cabo uu soo qaban jiray, waa xiri jiray, waa canaanan jiray, xadkii khamriga uu ka qaadi jiray uu ku qaadi jiray, kadibna wuu fasixi jiray. xilligii dagaalku soo aaday, Abu Mihjan ka marka wuxuu ahaa nin wacdaro aad iyo aad ka dhiga dagaalada. seefta hadduu qabsado gaalo fara badan uu laan jiray, faraskana wuu ku fiicnaa. xilligii dagaalku ku soo aaday asagoo khamri cabaaya la arkay, waa la qabtay, waa la xiray. haddii la xiray, dagaal baa la galay, wuxuu maqlay Abu Mihjan muslimiintii in la soo jibinayo oo la soo riixayo, gaaladii awood ay yeelanayaan. Sa'd ibn Abi Waqqas xaaskiisa meesha joogtay, wuxuu ku yiri, walaale xarigan iga fur, waa ku soo laabanaa. uu yiri ballan waaye, muslimiinta la jibinaya uu dhahay, aan ka soo dhiciyo gaalada dhinaciga, aan ka galo, aan la dagaalamo, haddaan soo guuleysto waa soo laabanaa, haddaan dhintana ha lee cafiyo. Sa'd ima oga, laakiin i fasax. Sa'd xaaskiisa waxay samaysay, way ka furtay xarigii meeshuu ku xirnaa iyo qolkii, wuu soo cararay, seeftiisii soo qaatay, faraskiisii soo fuulay, dagaalkii uu gadaal ka soo galay. Sa'd meel dheer uu ka arkay, balse ma uusan u malayn Abu Mihjan inuu yahay, waayo Abu Mihjan inuu xiran yahay ayuu og yahay. markaasuu arkay, wuxuu yiri alla ninkan dagaalamaayo sida Abu Mihjan oo kale, sida seefta Abu Mihjan oo kale ayuu wareejinayaa, geesnimada Abu Mihjan ayuu leeyahay, laakiin Abu Mihjan waa xiran yahay, ninkan yuu noqon karaa. Sa'd dagaalku wuu dhamaaday, guul ayuu ummadda u soo hooyiyey, kadibna wuu soo laabtay, xabsigiisu ku soo laabtay, gabadhii waa xirtay. dagaalku markuu dhamaaday oo Sa'd soo laabtay, ayuu wuxuu yiri maanta wallahi muslimiintu waa la jabin tagay, laakiin nin oo geesi ah ayaa noo yimid, ninkaasna difaaci maanta. markaasay waxay ku tiri, ninkaas ma taqaanaa? maya, Abu Mihjan waaye, anaa soo daayay, anuu iga codsaday. markaasuu wuxuu yiri, Sa'd ibn Waqqas, Abu Mihjanow, haddii muslimiinta dartaada ilaahay uu ku ciseeyey, anna ma iisii xirnaanaysid maanta kadibna haddaa khamro cabto xitaa, anna wuxuu yiri ma ku ciqaabayay. markaas wuxuu yiri Abu Mihjan, anna maanta kadib waxaa igu ogtahay khamro dambe inaanan cabin. oo maxaa dhacay? wuxuu yiri khamro markaan cabo oo la ixiro oo la yacnaanto, dembigeeda waa iga dhacayo, waa ciqaab ay igu qaaday. laakiin wuxuu yiri daadan xireeninba oo ciqaab aadan igu qaadeenin, dembiga ciqaabta korkeygu noqonaa maalinta qiyaamaha la iga aaraa soo ma aha. anna waxaa igu ogtahay u dhahay maanta kadib inaan khamro dambe aan u dhawaaninba, oo muslimiinta aan garab taagnaado mar walba saan u garab taagnaa jiri oo kale. saasaa loo baahan yahay go'aan in loo qaato, oo ilaahay dartiis waxyaabaha looga tago dembiyada ah, ilaahayna liibaan iyo faraj ayuu ku siinayaa. maxaa nabi sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri, qofkii shay ilaahay dartiisa uga taga, bedelkeeda ayuu ilaahay siinayaa. waa muhiim, maxaa yeelay bedelkeeda in lagu siiyaa muhiim ah. sababtoo ah fiiri, hadda ka hore waxaa dhacday ninbaa oo xilligii hore muslimiintii hore ganacsi waxay u aadi jireen wadamadan kale ee gaalada iyo Shaam iyo dhulkan kale ee muslimiinta qaar ka mid ah, dhulna gaala ay aadi jireen. nin muslimiinta ka mid ah marka wuxuu u joogay ganacsi, wuxuu u joogay dhul ay degan yihiin niman gaala ah. heshiisa dhex yaallay muslimiinta iyo gaalada inaa micnaha aan la isku soo dhawaanin, in la kala shaqaysto. haddaba saas markay dhacday, ninkaana marka wuxuu arkay gabar oo qurux badan. wuxuu yiri walaalay, hal habeen ii ogolow inaan kula seexdo. lacag tiro badan ayay u sheegatay, lacagtii soo qaaday, wuu u keenay. markuu u keenay lacagtan, waxay tiri keen. lacagtii ka qaaday, wuu soo galay, asagoo raba inuu ka zineysto ayuu wuxuu soo xusuustay ilaahay dartiisa u dhaafay. ilaahay soo xusuustay, wuu ka tegay, wuu baxay. haddana sheedaana soo dirdiray, maalin kale oo imaaday, lacag uu bixiyay, haddana wuu ka cararay.
waxay leedahay walaalo maxaa kugu dhacay markii dambe go'aanu ka qaatay gabadhii wuu farow ka qaaday lacagihii uu siinayna wuu u daayay saas markay dhacday gaaladii waxay dhaheen marka heshiiskii muslimiinta dhex yaalay wuu dhammaaday muddadii muslimiinta wadankooda ha ku laabtaano ninkan wuu iska soo baxay wuxuu ku soo laabtay wadankiisii suu iskaga joogay muslimiintiya waxay damceen inay weerar qaadaan oo gaaladii iyo jihaad la galo wuu soo baxay dagaalkiiyaa la galay dagaalkii markii la galay kadib asna dagaalkii wuu ku jiray haniimooyin iyo gabdho iyaa la soo qabtay markii la soo qabtay oo haniimooyinkii la qaybinayay ayaa ninka amiirka wuxuu dhahay nin hebel ha loo waco ninkii hebel ahaa ninkii gabadhii xagga ku jeclaan jiray waay waa loo wacay waxaa la yidhi niyow waxaa hadiye ahaan u heshay oo madaxweynaha muslimiinta hadiye uu ku siiyey gabadhan gabadhiiyuu fiiriyey waaba gabadhii oo xagga uuga soo tegay ilaahay dartiisa uusan ka sinaysanin waaba gabadhii oo lasoo qabtay oo addoon ah haddii ahaan loo siiyey saa la ogyahay addoomaha xilligaasi hadda wax addoon ah ma jiro xilligaas waxay ahayd gaalada markii dagaal lagu qaado oo gabdho laga soo qabto gabdhahaasi addoomay ahaayeen muslimiinta loo qaybin jiray ayagaa marka ama xaasi ka dhiganayaan ama ku shaqaysanayaan ninkan gabadhii la siiyey wuu farxay gabadhii uu xaaraanta ku rabi inuu ka sinaysto ayadoo xalaalo ilaahay maanta u keenay sanduuqay wadatay sanduuqii la soo qaaday guriguu keenay sanduuqii hadduu furayna lacagtii uu bixinayay oo dhan ayaa meesha ku jirtaba lacagtiina way soo laabatay gabadhiina wuu helay waa xadiiska nabiga sallallahu alayhi wasallam uu yiri qofkii shay ilaahay dartiisa uga taga bedelkeeda ilaahay waa siinayaa ilaahay dartiisa dambiyada aan uga tagno bedelkeeda ilaahay wuuna siinayaa وبالله توفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مقال كان سيفافي أصحاب هذا سيجارسي إن شاء الله تعالى خير كان وضفافنه وبالله توفيق.